إدريس حامود شبري oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta ku maamusay qada sharaf waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shira Sayli iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye aana musharaxa jagada madaxweyne isla xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Boorame caasimada gobolka Awdal qada sharaftani ay kala qayb galeen hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada iyo shacabweynaha magaalada Boorame ayaa ahayd mid ay taageero weyn ugu muujinayeen musharaxiinta jagada madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee doorashada soo socota uga tartami doona xisbiga kulmiye geesta kale munaasabadan ayaa waxyaabaha la iskula soo qaaday waxaa kamid ah taageerada weyn ee hayaan gobolada galbeedka Soomaaliland musharaxiinta jagada madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga muxaafadka kulmiye geestiisa mudane Idriis Xamuud Jibriil oo ahaa ganacsadaha maanta qada sharaftani ku maamusay ayaa wuxuu noqonayaa ganacsadihii ugu horreeyay ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ee harma sharafeedani ku maamusa waftiga culus ee heer qaran ee ka socda xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayli iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi isku soo wada duuba qada sharaftani ayaa ahayd mid ku soo gabagabootay jawi degan Xuseen Caatiye Jaamac Xuseen Gaafne golaha falanqaynta siyaasadda ee 19 magaalada Boorame.